مشعل في الوفاء كان في عقبه لليتامى دفاع حن قلبي له. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مال كستو أدنى مخلصان أما أدنى دعوانيسان وحن رجعنا إن أدعف ما تقبطان بإذن الله. هل كان حاروا إن أنكو صوت دوبا بروبلام يار oo ay soo gudbiyeen arday kamid ah ardada dhigta fasalada form 4 barnaamijkan oo dhahaya sida tan soo socota waxa la yiri given waxa lagu siiyay cos s 3/5 sin waxa lagu siiyay 5/13 fine waxa soo heshaa cos s + t sin s + t tan s + t inta waa lagu diray cos s na waa lagu siiyay inay ku la mid tahay sin t waa lagu siiyay inay inta ku la mid tahay سؤالها سويدين تمضنا وحيتها مركا cos s + t sin s + t tan s + t ayaa la idray maxaa la isi marka cos s waa la isiyay sin t waa la isiyay okay arwaanan isoo wareerininba qaacidada su'aasha koowaad aan bilowno okay su'aasha koowaad maxaa la yiri sida uu soo qaado cos s + t maxaa lagu helaa horta qaacidooyinka caadiga ah soo qaadana waxaan naqaanaa cos a + b waa sidoo kale cos a + b hadii lagu yiraahdo iyo cos x + y hadii lagu yiraahdo iyo waa angle xarafka doona la qaado wax weyn ma aha cos s + t qaacidada aan maxay ahaydeen cos s cos s aan xaraf ku qaadano cos s يعني cos a + b maxaa cos a cos b bala sin s b ahayd hada meeshan bala sin minus ahayd hada minus plus ay yahay cos s maxaa leeyahayna cos t meeshan balasta ah maxay noqonaysaa minus ayaan dhahay marka haye sin s طبعا labada s aan kala xiro waxaan diidaa labada s in iska galaan sin s sin t inta waan haystaa waayahay cos s waan bahaystaayo waa 3/5 ay cos t ma haystaa meesha cos t la imisiin laba basali isiyaba sin s waan haystaa booskiisa ma sin s xitaa ma haysto waxaan haystaa sin t oo booskeeda 5/13 ku bedelan karaa marka waa inaan raadiyo sin s iyo cos t waayahay waxaan aqaanaa qaacido Pythagorean theorem sin square a plus cos square a inuu ila mid yahay 1 طبعا sin square a iyo cos square a inuu ilmid yahay 1 hadii aan aqaano booskeeda s waan ku bedelan karaa oo aan dhihi karaa sin square s plus cos square s wuxuu ilmid yahay 1 marka waxaan soo heli karaa s tiga maqan hadda cos aan haysto sin ka soo heli karaa waayahay qaacidada maxay ahayd Pythagorean theorem waxay ahayd sin square s يعني ماشي a bay ahaday awal s aan leeyahay marka haye plus cos square s inta wuxuu la mid yahay 1 waxa su'aal isweydiin mudan marka tan haystaa ma cosaan haystaa mise sin meesha fiirso cos s ayaan haystaa طبعا sin s ma haysti Soomaan meesha waxay yaal sin square s iyo cos square s waayahay sin square s maadaama aanan haysanin waxaan leeyahay sidiisa aan saga soo qaato iyada wixii la eedira aan wili maraadi wili ma kama shaqay karo sababtoo ama haystiba wixii aan ku shaqay lahayn waan raasanayaa balas cos s waan haystaa Soomaan cos s waa 3/5 طبعا 3/5 waayo waxaan leeyahay marka cos عفوا meeshaan aan rabaa inaan dhigto waxaan rabaa inaan dhaho cos square s booskiisa waxaan ku bedelayaa numberka aan haysto oo maxaa waay 3/5 laakiin wuu square gareysay Soomaan square aan dhahna anagana aan square saarno waayahay square saaro inta waxay la mid tahay 1 ayaan soo bartay waayahay meesha ka sii wadno waxaan dhihi karaa marka sin square s sidaada aan soo qaato plus haye kan square gareeya marka square ka aan saaro waxaan leeyahayna
3 square garay meeqa waaye waa 9 loo qeybiyay 5 square garay waa 25 afwan waxaan rabaa 25 inaan dhaho intaa waxay la mid tahay waa la yiri 1 dabcan waxa la ii diray maxaa waayana waxa la ii diray waa maxay sin square s kan sidiisa aan saga soo qaato isaga waayo waxaan raadsanayo sin s aan raadinayo square kan baa bii doona 1 kan aan wareejiyo si aan sin kan kaliya meesha uu soo haro dhankan muxuu ku imaan doonaa calaamadiisa isbedeli doonta shay kasto equal ka wareegta calaamadiisa uu isbedesha haduu balaasna minus noqotaa de minus eedna balaas noqotaa wareeji okay sin square s waxay la mid tahay sideeda aan soo qaato iyadu si aan marka hore tan aan fududeeyo tani sidee u fududeey karaa marka waxaan u fududeey karaa midaani inaan dhaho 25 hal ku dhufo wixii ku soo bax 9 ka goo 25 hal ku dhufo waa 25 dabcan hadii aan 9 ka goon waxay soo bixi doonaa 16 la hoos dhigay 25 sidee u soo qaadanayaa 25 hooseeyaha sidee u soo qaadanaya saab ku fududeey waayahay aan sin s bisaal ii dirsaday ee sin square s leema dirin maxaa sameey karaa marka meel kasta ay square maxaa lagu baabiyaa square root meel kasta xidid laba jibaar aan ka saaro waxaan leeyahay meel kasta aan ka saaro xidid laba jibaar sin square s kan waxaan ka saarayaa xidid laba jibaar ka saar wuxuu la mid yahay kana asigan waxaan ka saarayaa sidoo kale xidid laba jibaar ayaan ka saarayaa waxaan leeyahay ka saar afwan waxaan leeyahay ka saar xidid laba jibaar ka saar waxaan rabaa inaan ka saaro xidid laba jibaarka waayahay sida wala aan ku sii socono haye hadii aan kan ka saaro square kan square root ka isla baxay maxaa ii hari doona sin s haye kan aan ka saarna hadana labadaani 16 uu ka baxaa 25 uu ka baxaa sax labada ka saar marka 16 hadii aan radicalka ama square root ka saaro afar soo bixi doonta 25 hadii aan square root ka saarana 5 ay soo bixi doonta sin s waa soo helay sin s waa soo helay oo maxaa iga dhiman marka sin s hadii aan soo helay maxaa iga dhiman dabcan sin s waa soo helay sin t na waan haystay cos s na waan haystay cos t baa iga dhiman cos t si aan soo helo waa inaan sin t square cos t square equal qaacida wahda inaan ku raadiyo qaacida waa inaan ku raadiyo wixii leeysi balance aan soo qaato maxaa leeysi horta soo kuwa leemisiin kuwa ay soo qaadba si ay hadhooti aan ugu shaqeysto okay haye sin s inta waan haystaa hakat cos s waa haystaa sin t waan haystaa maxaa iga dhiman cos t bas iga dhiman marka aan raadiyo waxaan leeyahay sin square dabcan sin square t plus cos square t equal 1 waayahay sida hadoo kale aan maro wadada hadda aan marayo kale sin square t horta sin t miyaan haystaa mise cos t aan fiiriyo dabcan sin t aan haystaa cos t ma haystaa cos s bas haystaa iyo sin s hadda sin t waan haystaa cos t iga maqan laakiin s ta labada xabo waan haystaa sin s waan haystaa cos s waan haystaa sin t waan haystaa maxaa iga dhiman cos t aan raadiyo marka sin t wixii aan haysto booskeeda aan ku bedasho bracket aan furto maadaama square uu ku jiro anoo inaan square gareeyaa bracket ka xir square dhe marka labadan aan square gareeyo okay plus cos square t isaga ma haystaa maya waa waxa aan raadinaayaba inta ayaa 1 ila mid ah okay maxaa sameeynaa marka waxaa sameynayaa aan square gareeyo 5 square gareeyo meeqa waa square whole square waa labadan 5 hadii square gareeyo maxay soo baxay 25 la hoos dhigay 83 square gareeyo waa 169 waayahay loo geeyay kan isagu waa wixii aan raadinay soo maahan siis u soo qaado kan cos square t siis u soo qaado inta waxay la mid tahay 1 waayahay aan meeshaan ka sii wadno costan waa mid raadina kaligeeda meesha uu ta kan wareeji kana raba inaan wareejiyo kan sideeda iyadoo un meesha ku harto dhanka bidixiyada ku harto equal 1 sidoo soo qaaday intaan waan soo qaatay maxaa rabaa kan baan rabaa inaan soo wareejiyo dhankan kala aan keeno maxaan dhahnina number hadii calaamada equal ku ka wareegto calaamadiisu isbedeshaho minus hadii tahayna plus noqoto hadii plus tahayna minus dabcan hadda meesha maxaa u qarsan plus u qarsan inta wuxuu ku imaan doonaa minus okay kan dhan soo qaad markii isaga dhan
gadaalkeen minus oo ku imaan calaamadiisa isbedeshay waayahay cos square 2 cos square t sidiisa aan u soo qaadan iyadu leenahay cos square t waxay la mid tahay 169 kan ku dhufo hal ku dhufo 25 ka gooy maxaa ii soo bixi doona marka 169 hal ku dhufo 169 25 ka gooy maxaa ii soo baxay 144 la hoos dhigay 169 sideeda aan u soo qaato waayahay intaa waa ii soo baxday maxaa sameynaa marka waxaan sameynayaa square kana saarabi square kana baabiina square na waxa lagu baabiyaa square root dabcan square root lagu baabiyaa square root kana soo qabto square root ka geli waxaan leeyahay xidid laba jibaar cos square t waxay la mid tahay kana sidoo kale square root geli ama xidid laba jibaar geli square root geli ama waxaan geliyaa xidid laba jibaar waayahay 144 la hoos dhigay ama loo qeyb 169 isagana aan square ka saaro maadaama kan aan ka saaray ayahay meeshana ka sii wadna bal waxaan leenahay inta kadib cos square t hadii xididka laga saaro maxaa soo haraayana waxa dabcan soo haraaya cos t waxay la mid tahay mid aan xididka aan ka saaro 144 ka saar 169 iyadana ka saar labada xidid saarane 144 hadii aan ka saar 12 soo haraaya 169 hadii aan ka saarana 13 soo haraaya dabcan wixii dhan waa soo wada haystaa marka cos t inta waa ii soo baxday wixii aan hore u haystana aan soo wada qaato si aan hal mar meel u wada shaqeeyo marka wixii aan hore wada haystana aaway dabcan waa qaana aan soo qaato hal meel aan soo keensto marka afwan meesha soo wada keeno okay inta waan haystaa cos t waan haystaa sin s waan haystaa cos s waan haystaa waayahay kuwan aan dhinac isku mariibal waxa leeyahay aka haye sin s iyo cos s sin t iyo cos t soo mooda haysi qaacidadii marka su'aasha koobaad aan hal mar qaacidadeeda iyo idaan soo qaato su'aasha koobaad waxa la diray dabcan cos s plus t cos s plus t waxa lagu helaa cos s lagu dhigto cos t laga jaray sin s lagu dhigto sin t bas ku badbadala marka wixii ay haystid ku badbadash maxaa sameynayaa okay aan ku badbadash waxa leeyahay equal leh okay waxaan rabaa in arkeen dhaha cos s boss kan cos s waxaan rabaa inaan ku badasho numberkan haysto cos s maxaa haysta meeshaan ka fiirso cos s dabcan waxa haysta 305 qoro cos s bosskiis 305 ku badalay cos s cos t way isku dhufsiin Soomaa lagu dhuftay aadina cos t maxaad haysataa raadi dabcan cos t waxaan haystaa 12 la hoos dhigay 13 ku badalo laga jaray soo qaada adigana haye maxaa ii xiga laga jaray sin s maxaan haystaa bal fiiri sin s waxaan haystaa 4 of 5 sin s waxaan haystaa 4 of 5 ku badalo sin s waxa ku dhufsan sin t Soomaa lagu dhuftay sin t maxaan haystaa sin t waxaan haystaa 5 over 13 okay dabcan marka meesha maray maxaa sameynaa way iska fududaa hawsha soo gabagabad sarreeyo ku dhufo hoose ku dhufo saddex hadii aan 12 ku dhufto waxay soo bixi doona 36 la hoos dhigay 5 hadii aan 3 ku dhufto waxay soo bixi doona dabcan waxaan rajaynayaa waa 65 okay laga jaray sarreeyo ku dhufo hadan sidoo kale sameey 4 ku dhufo waa imisa waa 20 la hoos dhigay haye 5 ku dhufana waa 65 tani aan meesha ku soo gabagabeeyay marka maxaa leenahay marka dabcan hoose number kasta markii jajabka aan baran jirin maxaa ahaayna number kasta ama jajabka hooseeyay isku mid yahay mid ka qaado sarreeyaashiisa hadii isku darsamaa isku dar hadii kala go'aan kala go dabcan 36 labaatan waa kala go'aan kala go calaamadooda kala duwan kala go 36 hadii aan ka gooyo 20 dabcan waxa soo baxay 16 su'aasha koobaad meesha aan ka gudbo su'aasha labaad maxaa leeyahay su'aasha labaad waxaa la idiri sin s plus t okay sin s plus t yani sin a plus b oo kale waa sin a cos b plus cos a sin b lagu heli jiray Soomaa sin s cos t ayaan leeyahay marka sin s oo ku dhufsan cos t plus cos s
عفوا cos s oo ku dhufsan cos t waa sida sin s cos t oo ku dhufsan cos s عفوا meeshan sin t araba cos s maxaa sin t ده sin t that is أول حاجة sin a cos b plus cos a sin b ومن حرفيهم بس بدل واحد اسمه بدل وياه محل هايستانا waxaan haysta balaan fiirsado kuwan inaan fiiriyo waan ku qasbanay sababtoo ah waxaan ku shaqeeylahaa aan mar kale soo qaato si aan ba ugu wareerin ba kala soo qaado waan ma ka fiirsanaaba kan ku badalaan dhihi doonaa haduu Ilaahay raado waayahay bal aan ku badbadalana markaa sin s plus t qaacdo lagu helo waan qortay sin s maxaan haystaa fiirso waxaad haysataa 4/5 booskeeda ku badalo booska sin s maxaan ku badalana 4/5 ku badalana waxa leeyahay waa 4/5 oo ku dhufsan maxaa ku dhufsanna waxa ku dhufsan cos t lagu dhuftay cos t maxaan haystaa fiirso mar طبعا cos t waxaan haystaa 12 hoos dhiga 13 ku badalo balaas soo qaada adigana cos s maxaan haystaa cos s waxaan haystaa 3/5 ku badalo ku badalo 3/5 okay lagu dhuftay maxaa ku dhufsan marka cos s sin t maxaan haystaana sin t waxaan haystaa 5/13 ku badalo iyadana meesha marka marsiinaa maxaan sameyn karaa marka waxaan sameyn karaa sareeyo ku dhufo hooseeyo ku dhufo okay bal aan sameeyo waxaan leeyahay 4/12 ku dhufo waa imisa waa 48 dabcan la hoos dhigay 5/83 ku dhufana waa imisa waa 65 waayahay loo geeyay 3 ku dhufo hadana sareeyo ku dhufo sida boodo haye sareeyo ku dhufo 3 ku dhufo waa 15 la hoos dhigay haye 5/3 ku dhufana waa imisa dabcan waa 65 meesha marka marsiinaayo maxaa waay hooseeyo isku mid ah maxaa la sameeyaa wixii hadda soo aragnay hooseeyo isku mid ah mid ka qaado sareeyaashana suuqay hadda isku darsamaan hadda kala go'an kala go labada hoose mid waan ka qaatay sareeyaash isku darsamaan ha calaamado isku mid suuqay waa imisana 45 diloog 48 aan rabaa diloog 15 طبعا waxa soo baxaya 63 qaybta b su'aasha b na meesha ha inoo joogto su'aasha ugu dambaysa ee c maxay ahayd iyaduna waxay ahayd tan s loo geeyay tan t tan s loo geeyay t arwa afwan s loo geeyay t tan s loo geeyay t maxaa lagu helaa iyaduna waayahay waxaa lagu helaa dabcan tan a plus tan b ahayd s plus tan t aan dhamarka tan s plus tan t oo loo qaybiyay maxaa u qaybsanna waxaa u qaybsan 1 minus tan s oo ku dhacsan tan t harabatan ina ku darasha okay waayahay meesha markaa marsiinaa maxaa sameynaa horteeda asaga sii qorto boos kastaay horta maxaa boos ahba tan s iyo tan t ma bahaystiya maxaa ku qasbanay marka hore inaan soo raadiyo tan s soo raadiyo hadana tan t tan s waa iska fudud si aan ku helo sababtoo ah tan waxaan ogahay in lagu helo sin loo qaybiyo cos marka tan s waxaan ku heli karaa sin s loo qaybiyo cos s tan t waxaan ku heli karaa sin t loo qaybiyo cos t waayahay sida aan sameeyno marka waxaan leenahay dabcan waayahay marka hore aan soo qaato wixii aan haysto horta maxaan haystayna sin s iyo cos s waxaan haystaa soo qaato okay marka aan raadiyo sin afwan waxaan rabaa tan s ayaan rabaa marka hore aan soo raadiyo tan s maxaan ku heli karaa tan s waxaan ku heli karaa sin s loo qaybiyo cos s waayahay aan dhahabal waxaan ku heli karaa sin s oo loo qaybiyay cos s okay booska sin s waxaan ku bedelanayaa wixii aan haysto sin s maxaan haystaa sin s waxaan haystaa 4/5 soo maahan okay kan waxay yaraan hoos u dejiyay tan s waxaan haystaa 4/5 ku bedelo booskiisa sin s booskiisa waxaan ku bedelnaa 4/5
okay maxaan haystaa cos s na cos s iyadana maxaan haystaa cos s ayaan rabaa booskiisa ku bedelo waxaan haystaa 3/5 ku bedelo iyadana ku bedelo okay haye inta markaan taaganahay maxaan sameyn karaa marka anoo isu reerininba waxaan sameyn karaa 5 kan hoose iyo 5 kan isla bixi karaan dabcan meesha waxa igu haraay marka hada isla bixiyo 4/3 ayaa ku hari doonta 4 la hoos dhigay 3 ayaa meesha ku hari doonta tan is waa soo helay tan t idan aan soo helo tan t maxaa lagu helaa tan t waxaan ku heli karaa sin t loo qeybiyay dabcan cos t waayahay sin t iyo cos t maxaan haystaa marka waxaan haysta bal aan fiirino sin t iyo cos t sin t waa tan waxaan haystaa 3/5 ku bedelo sin t booskeeda waxaan ku bedelnaa 3/5 cos t maxaan haystaa iyadana cos t waxaan haystaa 12 la hoos dhigay 13 ku bedelo iyadana waxaan isla bixi karaa hada 13 iyo 13 dabcan meesha maxay ugu haraa hadii 13 isla bixiyo waxay hari doona 5 oo kor ah kor waxa ka soo hari doona 5 hoos maxaa ka hari doona 12 5 la hoos dhiga 12 dabcan waan soo helay tan s sidoo kale waan soo helay tan t wixii aan soo helay bal aan meel isugu kasto tan s waxaan soo helay si aan ugu shaqeyno tan s waxaan haystaa 4/3 tan s waxaan soo helay 4/3 ku bedelo hakat tan t maxaan haystaa iyadana tan t waxaan soo helay iyadana 5/12 ku bedelo iyadana طبعا waxaa markaan qaacidada inaan ku shubayo dhiman qaacidada aan soo qaato yahay qaacidada waxay ahaaday tan s plus t waxa lagu helaa tan s plus tan t 1 minus tan s tan t okay qaacidada balance ka soo qaadano waxa aan haysana isaga bedesho oo hool hadda sidaa u dheer imhariba tan s maxaan haystaa 4/3 ku bedelo booskeeda 4/3 haye balastan soo qaada adigana haye tan t maxaan haystaa tan t waxaan haystaa 5/12 la hoos dhigay 1 minus tan s lagu dhiftay tan s dabcan waxaan haystaa 4/3 oo ku dhacsan tan t maxaan haystaa 5/12 para okay hawsha waa biska dhowdahayba waxaan sameynayaa marka maadaama hooseyaashan isku mid yihiin oo 3 iyo 12 yihiin hadii kan LCM ka caadiga raadinaan dhaho oo 12 LCM u noqonayo marka labada hoose inaa fududeeyo ugu adkaan doonto saadartay waxaan sameynaa marka labada hoose waan isku dhufanaa oo saana waa la sameyn karaa oo waa la sameeyaaba waayahay waxaan leeyahay marka hooseyaasha aan isku dhufto waxaad sameysaa 3 ku dhufo LCM kooda ka aan ka dhigo 3 ku dhufo waa imisa dabcan waa 36 daani 3 u qeybi 12 4 ku dhufo waxay soo bixi doonta 48 loo geeyay calaamada loo geeyay soo qaatay 36 hadana 12 u qeybi maxay soo baxay 3 5 ku dhufo 15 okay qaybta kore waan xaliyay qaybta hoose iyadana sidoo kale sameey 1 minus ka horta iska soo qaado minus kan uu ku wada dhacsan kuwan waxaan sameeynaa 12 3 ku dhufo waa imisa 12 3 ku dhufo maxay soo baxaya 12 hadii aan 3 ku dhufto waxay soo bixi doona 36 hay laba sareeyo isku dhufadana 4 5 ku dhufana waa imisa oo hadii ku dhufo jeeta sareeyo ku dhufo hoose ku dhufo tan iyo tan isma lahan isku qaldin 20 waayahay meesha marka marsiinay maxaa sameeyaa marka waxaan sameeynaa sareeyaasha isku darso kanne LCM ahaan u hagaaji oo maxaa la yiraahdaa kan ku dhufo ka jar 36 hal ku dhufo 36 20 ka go waayahay hawsha marka iska soo fududaatay maxaan sameynaynaa marka meesha marsiinayno waxaan leenahay labada sareeyo isku darso 48 hadii aan 15 u geeyo maxay soo bixi doonaa dabcan 63 ay soo baxaya
hooseeyaha 36 siisu soo qaado maxaan sameeyay labadaas araba isku daray waa 63 hooseeyaha siisu soo qaatay hoos imo hadana qaybta hoose aan imaano 36 hal ku dhufo waa 36 20 ka gooy 16 baa kor ka soo hari doonta 16 la hoos dhigay 36 hooseeyaha siisu la soo qaataa oo sidaan qaabka loo xaliyo waan soo aragnay ugu dambeyn 36 iyo 36 isla bix dabcan waxa meesha ku hari doona 36 iyo 36 hadii aan isla bixiyo waxa meesha ugu hari doona tan ugu dambeyn tan s plus t waxay ila mid noqon doontaa marka 36 iyo 36 isla bix maxaa noqonaysaa waa 63 la hoos dhigay 16 عفوا waxay soo bixi doona 63 la hoos dhigay 16 63 oo la hoos dhigay 16 36 isla bixiyay fudud 63 la hoos dhigay 16 saddexdii su'aal ee uu ka koobnaay problemkaasi sidaa baan ku xalinay waxaan rajaynayaa arday inaad fahanteen oo aad ka faa'iideysan doontaan bidin ilaahi baari oo aad ku celcelin doontaan wixii su'aalahan insha Allah ta'ala tafadal